Abshir Fero muxuu uga duwan yahay murashaxiinta kale? Musharax madaxweyne Abshir Aadan Fero waa carruurtii qaranka u lahaa aan haldoorka maanta oo aan rajaynayno inuu dalkeenu ka saari doono dhibaatooyinkii soo taxanaa tani markii aan xornimada qaadanay oo ay ugu weyn tahay qabyaaladda, musuqa iyo fargelinta shisheeye. Waa markii ugu horeysay uu dalkeenu u helayo hogaamiye la hubo laguna kalsoon yahay aqoontiisa iyo khibradiisa ehelna u ah dhisidda dowladnimada state building. Maxaa yeelay Abshir Fero waxa uu isku darsaday dhowr waxyaabood oo muhiim ah oo inagu dhiirigelinaya in aan u aqoonsano inuu yahay hogaamiyihii dalkan u baahnaa tani markii aan xornimada qaadanay si aan kaalinteena uga qaadano hogaamintii weliba horumarka caalamka. Abshir Fero hooyadiisa Maama Saciide Ciise Bootaan waxay ka mid ahayd taliska ciidanka ee kacaankii weliba waxa ay ahayd qof aad loogu ixtiraamo gudaha ciidanka. Abshir waxaa lagu soo barbaariyay dowladnimada iyo daljaceyl waana bilowgii halganka uu maanta ku doonayo in dalkiisa ka samata bixiyo dhibaatada uu ku jiro muddada fog. Sidoo kale Abshir Fero hooyadiisa Maama Saciide Ciise Bootaan waxay ka soo shaqaysay taliska booliiska magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta waxayna ahayd qof aad loogu ixtiraamo gudaha ciidanka booliiska. Sidaas si la mid ah Abshir Aadan Fero aabihiisa Maxamuud Aadan Fero waxa uu ka mid ahaa duuliyaashii diyaaradda ciidanka militariga ee dalkeena kuwooda ugu khibradda badnaa weliba waxa uu ka mid ahaa 5tii duuliye ee ugu horeysay ee lagu soo tababaro dalka la oran jiray Midowga Suufiyeed oo hadda loo yaqaano Ruushka. Sidaas daraaddeed Abshir waxa uu ku soo dhex barbaaray talisadii ciidanka booliiska iyo militariga sidaas ayuuna ku ahaa carruurtii qaranka. Sidoo kale Abshir Fero aabihiis kadib ciidanka cirka wuxuu go'aansaday in uu ku shaqeeyo xirfad kale oo uu lahaa oo ah dhakhtarnimo. Wuxuu ka soo shaqeeyay Faransa isaga oo ku shaqeynayay xirfadda dhakhtarnimada. Intaa waxaa dheer wuxuu noqday xildhibaan dowladdii ku-meel gaarka wuxuuna ku caan baxay baarlamaanka dhexdiisa markii la waayo inuu ku mashquulo daaweynta dadka danyarta ah. Wuxuu ku daaweynayay si bilaash ah isagoo muddo 2 sano ah si volunteer ah ugu caawinayay barnaamijka Danguud xirfadiisa dhakhtarnimo inuu kaalintiisa kaga qaato maadaama hay'addu ay ahayd hay'ad samafal ah. Abshir Fero waa halyeygii fashiliyay Midowga Yurub xafiiskooda Soomaaliya iyo shirkadaha u shaqeeya ee jooga Xalane inay ka macaashaan hantida ummadda Soomaaliyeed ayna sameeyeen musuqmaasuq iyo cunsurnimo ku aadan heshiis ay la saxideen dowladdii tan ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka ahaa taa oo dhaawac weyn ku ahayd qarannimada dalkeena. Heshiiskaas waxaa ku qornaa qandaraasluhu ma shaqaalaysiin karo qof haysta dhalasho Soomaaliya ama isirkiisu yahay Soomaali goobtaasna adeegna kama bixin karto marka uu dhammaado dhismaha taasoo dhici jirtay xilligii gumaystaha waxayna toos uga hor imaanaysay qawaaniinta caalamiga iyo tan Midowga Yurub iyo weliba ahdiga caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Intaa kadib Abshir Fero waxa uu la wadaagay musuqii jiray xarunta OLAF ee Midowga Yurub u qaabilsanaa dabagalka musuqa iyo weliba wax isdawmarinta taas oo soo xaqiijisay inuu ka jiro musuqa xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya. Intaas kadib Abshir Fero waxa uu la fuulay maxkamadaas oo ka dhacday waddanka Faransiiska magaaladiisa Paris halkaa oo uu kaga guuleystay isaga oo jeebkiisa ka bixiyay lacag dhan 1.5 milyan oo euro muddo 4 sano bar ah oo ay dacwadu socotay. Ugu dambeyntii Abshir Fero uu u soo hooyay dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliya guul ay guusha ku raacday taariikhdu markay ahayd 21kii bishii 2021. Abshir Fero iyo wasiirkii hore ee kalluumeysiga Maxamed Macalin Xasan waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee soo ogaaday arrinta dacwadda badda Soomaaliya oo ay Kenya muran gelisay. Waxa ayna dadaal dheer u galeen sidii baddeena lagu badbaadin lahaa. Ugu dambeyn waxa ay ku guuleysteen in arrinta dacwadda badda xoojiyaan. Abshir Fero si weyn ayuu ugu shaqeeyay sidii lagu geen lahaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Ugu dambeyntiina uu kiiska ku wareejiyay dowladdii tan ka horeysay isagoo u xilsaaray Ambassador Axmed Cabdi Xaashi Xasharo iyo weliba dowladda Soomaaliya. Abshir muxuu ka qabtay arrinta burcadbadeedka muddadii uu dalkeenu ku jiray dagaalada sokeeye kadib burburkii dowladdii dhexe ee 1991kii waxaa burburay dhammaan hay'adihii lafdhabarka u ahaa ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka sida kheyraadka badda. Waxaa dalkeena ku soo duulay shirkado shisheeye oo u soo guntay in ay sunta iyo weliba qashinkooda ku shubaan baddeena waxaana
ka dhashay cudurro badan oo aan hore loo aqoonin. Sidoo kale waxay xaalufiyeen kheyraadka baddeena sida kalluunka iyaga oo u adeegsanaya maraakiib waaweyn iyo weliba shabakado ay ku xaalufinayaan kalluunkeena. Xitaa waxa ay gaareen inay la baxaan ukuntii, taasi oo muujinaysa sida ay u dabargooyeen kheyraadka baddeena. Intaas kuma aysan ekaan, xitaa waxa ay soo gaareen in ay kalluumaystaan xeebaha ku dhow bariga ayna lahaayeen kalluumaystayaashii Soomaalida ahaa ee ay arkaan, taas oo qasabtay in ay kacaan dhalinyarada noloshooda ay ku tirsanayd kalluumaysiga maadaama la hor istaagay noloshooda asaasiga ahayd oo ay ku maareen jireen nolol maalmeedkooda, carruurtooda iyo weliba qoysaskooda. Dhalinyaradaas u dagaalantay xaqooda waxay si xoogan dalkeena ugu difaaceen kalluumaysiga sharci darrada ah, laakiin nasiib daro waxaa loo bixiyey magac xun oo aysan u qalmin oo ah burcadbadeed. Intaa kadib, Musharax Abshir Feero waxa uu u dagaalamay in uu u doodo xuquuqda dhalinyaradaas ilaa uu caalamka ka dhaadhiciyo dhalinyaradeenna inaynan ahayn burcadbadeed, balse burcadda saxda ah ay yihiin kuwa baddeena sida sharci darrada ah uga kalluumaysada maalin kasta, islamarkaana xaalufiyey kalluunkeena. Abshir Feero iyo weliba Galmudug. Musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero waxa uu ka mid ahaa aasaasyaashii Galmudug iyo dadkii Galmudug budhiga u ahaa. Madaxweynihii hore ee Galmudug Korneel Maxamed Axmed Caalin ayaa waxaa laga hayaa oraah dhehaysa, aniga waxaan ahay madaxweynaha Galmudug, laakiin waxaa jira madaxweyne labaad oo daaha gadaashiisa ku jira, waana mudane Abshir Feero. Sidoo kale Abshir wuxuu aasaasay barnaamijkii Danguud oo ahaa barnaamij samafal ah oo lagu gargaarayay ummadda Soomaaliyeed cirifka waqooyi ee Lowyo Cadde ilaa cirifka koonfureed ee Raasa Jumbo oo ah guud ahaan geyiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo idil. Waxa uu ugu muhiimsanaa howlaha ay qabanaysay caafimaadka bulshada, in la siiyo aqoon iyo waxbarasho, iyo weliba in laga saacido madaxda Soomaaliyeed arrinta geopoliticalska, iyo weliba in lagu xiro hay'adaha caalamiga ah. Sidaasi la mid ah waxaa ka mid ahaa mashruucii DAB Agriculture oo lagu xanaaneynayay xoolaha dalkeena oo ay xaruntiisu ahayd magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaana xusid mudan, Abshir howlaha samafalka ah ma jirin hay'ado caalami ah oo garab ku siinayay, wuxuu ku bixinayay jeebkiisa si uu u badbaadiyo nolosha dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah. Haddaba maxaa uu uga duwan yahay musharaxiinta kale? Abshir Aadan Feero. Mudane Abshir Aadan Feero waxa uu uga duwan yahay murashaxiinta kale, waa musharaxa kaliya ee ugu diyaarsan hogaaminta dalka, waana tan qorshayaashiisa oo dhammaystiran uu dalka uu ku maamuli lahaa. 2. Waa hogaamiyaha kaliya u diyaarsan ciribtirka nidaamka habqaybsiga qabiil ee 4.5 ama 4.5. Waa hogaamiyaha kaliya oo ay ku midaysan yihiin Soomaali oo idil, diyaarna u ah inuu mideeyo. Kadib madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha haatan dalka Faransiiska ee Emmanuel Macron, musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero waa musharaxii saddexaad ee u tartamay xilka madaxweynaha, kaasoo ololihiisa doorashada ku soo gala buug uu isagu qora, iyo weliba musharaxii ugu horeeyey ee Soomaali iyo weliba qaaradda Afrika ee sidaasi sameeya. Waa hogaamiyaha kaliya ee fahamsan siyaasadda beesha caalamka, yaqaanana sida loola xisaabtamo. Waa hogaamiyaha kaliya ee u diyaarsan daryeelidda iyo weliba ka warqabka odayaasha duubabka dhaqanka iyo culimada Soomaaliyeed. Waa hogaamiye dhalinyaro ah una diyaarsan soo dhicinta xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee hogaaminta iyo weliba maamulka dalka. Waa hogaamiyaha kaliya ee aan dalka iyo dadka Soomaaliyeed aan dembi ka gelin, una diyaarsan ciribtirka musuqmaasuqa iyo weliba si wax u maamulka. Waa hogaamiye ku xeeldheer arrimaha amniga, ganacsiga, maalgashiga, xiriirka caalamiga iyo weliba dhaqaalaha. Waa hogaamiye daacad ah, wadani ah, una soo guntaday dalkiisa in uu badbaadiyo. Waa hogaamiyaha kaliya oo ayna cidna wadato jirin. Waa hogaamiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Abshir Feero waa musharaxa kaliya u qalma kana mudan kuwa la tartamaya markii loo eego xaaladda adag ee dalka ka taagan oo ay ugu horeyso amniga. Waa musharax leh khibrad ku filan amni oo ka badan 32 sano, weliba ka soo howlgalay daafaha caalamka. Sidoo kale waa rugcadaas siyaasadeed oo ku xeeldheer xiriirka caalamiga, yaqaanana siyaasadaha ay ku shaqayso beesha caalamka iyo sida loola xisaabtamo. Sidaasi si la mid ah, Abshir waa ganacsade iyo weliba hal abuure ganacsi, guulna ka gaaray howlaha ganacsi iyo weliba maalgashiga. Waana qabiir dhanka dhaqaalaha ku xeeldheer, kana haysta darajada Master European Students. Waxaa xusid gaar ah mudan Abshir Feero isaga iyo nolol qurux badan iyo weliba horumar weyn ka gaaray. Waxaa xusid gaar ah mudan Abshir isaga oo nolol qurux badan
iyo weliba horumar weyn ka gaaray dalka dibaddiisa marka uu arkay dhibaatada waddanka iyo weliba dadka Soomaaliyeed haysata ayuu go'aansaday si cad in uu u istaago dalka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed wuxuuna wax ku soo bartay 4 dal sida Soomaaliya, Imaaraad, France iyo waddanka Ingiriiska taa oo muujinaysa way aragnimadiisa iyo weliba awoodiisa xagga aqoonta iyo weliba khibradda inuu yahay nin adag. Abshir waa halyey qaran, waa laacibkii siyaasadda ciyaartana la yaqaanay beesha caalamka oo aan marnaba kala gambanin, waana maandeerihii qaranka. Intaa waxaa sii dheer, Abshir Feero waa ukuntii loo qirayay dalkan si uu uga saaro dhibaatadii iyo weliba burburkii uu dalkeena soo maray. Sidaas daraaddeed dhammaanteena waa inaan u istaagnaa si uu dalka ugu faa'iideeyo kartidiisa iyo aqoontiisa iyo weliba way aragnimadiisa oo uu dalkeena u baahida weyn u qabo.